Ma ogtahay in dunida maanta ay jiraan wadamo dadka ku nool dhammaantood ay muslimiin yihiin? Haddaba, halkan ayaan kuugu soo gudbin doonaa ilaa iyo 5 waddan oo dadka ku nool dhammaantood ay muslimiin yihiin. Waddanka koowaad, Maldives, waddan jasiirado ah oo diinta Islaamka kaliya laga ogol yahay. Qof aan muslim ahayn ma noqon karo muwaadin Maldives ah. Waddanka labaad, Mauritania, diinta Islaamku waa qayb ka mid ah nidaamka dawliga ah, dadka oo dhanna waa muslimiin sunni ah. Waddanka saddexaad, Sacuudi Carabiya, dalka ay ku yaalaan xarameynka Makka iyo Madiina. Diimaha kale lagama ogolo in lagu faafiyo. Waddanka afaraad, Soomaaliya, waa dal 100% dadkiisu ay muslimiin sunni ah yihiin, diinta Islaamkana si weyn loogu dhaqo. Waddanka shanaad, Afghanistan, halkan Islaamka ayaa ah diinta rasmiga ah, dadka oo dhanna waa muslimiin.